waxaan mahad u celinayaa allihii halkan maanta isugu keenay oo suurtageliyay annagoo nabada inaan halkan isugu imaano. waxaan rabaa inaan mahad celiyo madaxweynaha xaaf oo runtii halkan lagu wada cazimay iyo dadka reer Cadaado iyo guud ahaan shacabweynaha Galmudug. xaqiiqdii si fiican oo sharaf leh ayaad noo soo dhaweyseen, weliba markaan nimid roob baa da'ayba iyo weliba markaan magaalada soo galay waxaa ku taalay nabad iyo nolol. waxa weeye waa halbeegeena weyn. waa kamid fiican reer Galmudug ma u baahan yihiin nabad iyo nolol. waxaan intaas leeyahay aasaaskeedu markaan leeyahay nabad waa dib u heshiisiin oo qof dadku kulli halkan yimid ay ka wada hadleen. waa dib u heshiisiin, dib u heshiisiin iyo khilaaf la'aan dowladda dhexdeeda ah. taasna runtii waxyaabaha colaadda keena ay tahay oo qoladan shabaabka ah ay dhibaatadooda noogu sii socoto. waxaa noo soo noqday runtii sharafkii iyo karaamadii aan ku lahayn caalamka waa noo soo noqotay. waxaa taas markhaati ka ah gabadhii halkan taagneedu safiiradda ahayd oo European Unionka matalaysay inay nagu soo wareejisay, dowladda dhexe ku soo wareejisay saxiixii iyo approvalkii ay lahaan jireen iyagu oo maanta gacanta ay nagu jirto. wax alla wixii development ama horumarin ah annagu inaan leenahay go'aankeeda. runtii taasna waa ku heshiinay. dorad iyaan qalinka ku heshiinay 240 milyan ay sheegeen inay noo hayaan inaan annagu maamuleyno oo aan u maamuleyno baahida aan qabno aan u maamuleyno.